kowda bisha koowaad 2026 ee sanadka cusub waxaa magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ka furmi doona koobka horyaalada Jamhuuriyadda Somaliland kaas oo ay ka soo qayb geli doonaan 21 kooxood oo ka kala socda guud ahaan gobolada dalka. Koobkan waxaa difaacanaysa kooxda dawladda hoose ee magaalada Burco oo koobkan ku qaaday dagaal aan qoryo la isku qaadan isla markaasina taageerayaasha kala duwan ee reer Burco sanadka ay u soo diyaar garoobeen inuu yahay sanadkii Burco taasoo ay suurtagal ka dhigeen isla markaasina koobka horyaalada Somaliland ay geeyeen xarunta gobolka Togdheer ee magaalada Burco iyo garoonka Al-Amsa Stadium. Koobkan kooxaha ka qayb galaya badankooda waxa ay ka socdaan kooxaha caasimadda Hargeysa iyo magaalada Burco oo inta badan ku xifildama dhan kasta oo la eego. waxaana uga qayb galaya caasimadda iyo gobolka Togdheer min 4 kooxood. Burco sanadkan waxaa ka socda kooxo awood leh kuwaas ay ka mid yihiin kooxda qaaday liiga horyaalka gobolka Togdheer ee ciidanka booliska ee Jamhuuriyadda Somaliland oo haysta ciyaaryahano halisa isla markaasina iyaga laftooda la saadaalinayo inay ka mid yihiin musharaxiinta koobka ee sanadkan. Dawladda hoose ee Burco oo koobkan difaacanaysa ayaa iyaduna ku jirta tababaradii ugu dambeeyay ee koobkan iyadoo mar kale doonaysa inay koobkan geyso xarunta gobolka Togdheer ee magaalada Burco. laakiin qaadista dawladda hoose ee mar labaad macno badan ma leh. waxa macnaha kala sameynaya in koox kale oo ka socota gobolka Togdheer sanadka ay ku guuleysato horyaalada Somaliland taas oo ay taageerayaasha gobolka Togdheerna aad u jecel yihiin haddii ay qaadi weydo kooxda dawladda hoose ee Burco oo koobkan difaacanaysa. waxayna muhiimadoodu tahay in mar labaad koobka la geeyo Al-Amsa Stadium iyo Burco. kooxaha caasimadda ka socda oo iyaga laftooda ah kooxo halis badan isla markaasina suuqa furnaashihiisa ka faa'iideystay oo soo qaatay ciyaaryahano badan oo saameyn ku yeeshay kooxaha caasimadda laftooda ka dhisan waxaana ka mid ah ciyaaryahan Hindi oo kooxda Goodir ee magaalada Hargeysa ay kala soo wareegtay kooxda maaliyadda ee isla Hargeysa. أحمد هندي هو هندي سوماليلاند هو هندي قبلي kaas oo muran ka dhaliyay labada kooxood dhexdooda. ciyaaryahankan ayaa ah ciyaaryahanada ugu fiican Somaliland xagga dhexda. kooxaha kale ee sanadkan la saadaalinayo koobkan inay caasimadda keeni karaan waxaa ka mid ah kooxaha Gaashaan iyo Goodir oo labadooduba aad ugu cadcad koobkan inay qaadaan sanadkan. kooxaha ka socda gobolada Awdal, Sanaag iyo Sool iyaga lama rajeynayo inay koobkan macno badan ku yeeshaan amaba saadaal looma hayo inay ku guuleysan karaan koobka horyaalada Somaliland inkasta oo saadaasha kubaddu inta badan ay isbedeli karto. magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil oo koobkan lagu qabanayo ayaa kooxahoodu iyaguna dadaal badan ugu jiraan inay sanadkan ku guuleystaan horyaalada Somaliland inkastoo aan saadaal badan la siinaynin inay koobka qaadi karaan. saadaasha badan sidan hore u soo sheegnay waxay la jirtaa kooxaha ka socda caasimadda Somaliland ee Hargeysa iyo xarunta gobolka Togdheer ee Burco.